safaaradda horta dalka Mareykanka safaaradda waa inoo ka fureed awal waa ka jirtay safiir ay noo joogay bishii maxaa la yihahdaa sanadkii 2015 ayaa safaaraddii dib loo furay 24 sano kadib wixii maalinta 27kii maxaa la yihahdaa bishii la soo dhaafay September wixii dhacay waxay ahayd madaxweynuhu uu dib u furay madaxweynuhu furay waxay ahayd in ay safaaraddu heshay markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya guri ama xafiis ay safaaradda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay ku leedahay Mareykanka waxaa jiri jiray deegaan aan Mareykanka ku lahayn oo layna ka xaraashay markaynu ilaashan kari weynay laakiin Soomaaliya weligeed kuma yeelan Mareykanka xafiis iyadu leedahay oo dhulka iyo guriga Soomaaliya gadatay weligeed kuma yeelan markii ugu horeysay ayay hadda noqotay taas ayuu madaxweynaha iyo wafdiga la socday iyagoo New York u jooga shirkii qaramada midoobay shirweynihii qaramada midoobay sanadlaha ay u tageen inay soo furaan markii wixii la furayay wuxuu ahaa gurigii safaaradda waxay ku jirtay ijaar meel yara ayay ijaar uga jirtay maanta laakiin guri iyadu ay leedahay oo weyn oo 10 qol ka kooban ayay Soomaaliya leedahay waxaa mahad deeda iska leh maanteeda madaxda xukuumadda joogta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii aad ugu dadaalay oo markaanu u sheegnay baahida aynu u qabno safaarad maalin kasta guri ijaarkiis nala ku ciriiriyo lacag u qoondeeyay kuna dhiiraday culays kastoo jira in ay dhulkaa gadaan safaaraddu muhiimadda ay leedahay dhulkaas la gaday safaaraddu muhiimadda ay leedahay waynu ognahay hadda waa safaarad kasta xiriirka dalka ay joogto ayay dalka ay ka soo jeedo u xoojisaa dadkeedana waa u adeegtaa laakiin waxaa hadda soo kordhay faa'iidada ay leedahay dhulkan la iibiyey la gaday waxaa weeye in safaaraddeenu Washington ay tahay mid degan oo ku shaqeysa dhul iyadu leedahay guri iyadu leedahay xafiis iyadu leedahay oo aan ka baqayn in maalin kasta lala daba socdo ijaarkeen iga bax meeshan waana ka guurtaa yani ciriir badan oo ay safaaradaha xafiisyada ijaarka degani ay la kulmaan wayhay dowladda Soomaaliya sidee ugu faa'iideysan kartaa taageerada Mareykanka dowladda Soomaaliya taageerada Mareykanka waana ka faa'iideysataa oo xag siyaasadeed xag amni xag dhaqaale way ka faa'iideysataa waana sii kordhin kartaa markastoo xiriirku sii fiicnaado safaaraduhu ay safaarado xoogan inoo joogaan iyagana safaarad ay dalkeena u joogto inaguna safaarad xaggeena ku leenahay si fiican u shaqeynaysa xiriirka ayaa sii xoogsada aad uga sii faa'iideynaa waxyaabaha aynu ka faa'iideysano Mareykanka waxaa ka mid ah iyagoo ina ka taageera xagga amniga la dagaalanka maxaa la yihahdaa argixisada tababarka ciidamadeena aad ayay nooga taageeraan oo aanu abaal weyn ugu hayno waxay naga taageeraan xagga siyaasadda maalin dhaweyto oo Kenya ay keentay waxaa ugu dambeeyay maalan resolution ama qaraar ay rabtay in ciqaab lagu adkeeyo qaybo ka mid ah Soomaaliya dad Soomaaliyeed iyo hay'ado Soomaaliyeed oo halis gelin lahaa shaqadooda Mareykanka wuxuu ka mid ahaa dalalkii ugu horeeyay oo arrintan naga garab istaagay oo diiday in qaraarkaasi uu fulo marka Mareykanku siyaabo badan ayaan uga faa'iideysanaa xiriirkooda iyo taageeradooda dhan kasta qorshaha xiga ee wasaaradda ay doonayso maxaa ka mid ah
qorshaxiga waxaa ka mid ah safaaraddu dabcan shaqadeedu waa joogto oo mar kasta waxaa la filayaa sida ummad kasta oo nool ay samayso in horumar lagu sii taagsado marka sida uu madaxweynuhu kaga dhawaaqay markuu furayey xafiisyada aan ka gadanay Mareykanka